الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الخيار الطيبين الظاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقهرين والله ليال إلهي بأنه ومهدنقينا نعم كفرها بضن إلهي سبحانه وتعالى وإنه قلضي أيقوا أنت نعمة الإسلام الحمد لله ثم الحمد لله. أنت كبعدي ما أنت وحالكن نقبل عن بدون إن شاء الله تعالى امتحانك قبولك أما قادشة أرضية عصب سنة الدكتوراه كن أفر بقول أفرتني أفر كن أفر بقول أفرتني شن ووافقسن لبكون صدح لواتن لبكون حوي أفر لوات محدك أما معاهدة سنة قبل كتقدر كارهان مقال مدحديثة برعو waxaan rabay halkan insha Allah ta'ala hal kelmad oo wargelina inaan ugu gudbiyo waalidiinta iyo ardayda waxa weeye ku xiran macaahidda sunne sidii iclaanka hore ugu baxay qoraalka ama tasjiilka ardayda wuxuu bilaabmay 15 bishii 7 buu bilaabmay marka maanta oo bishu ay 26 tahayna qaybtii hore ayaa waxa weeye imtixaanka galaysa ardayda marka waxaan ku wargelinaynaa waalidiinta iyo ardayda waxa weeye hadda aan ka soo gaarin imtixaankan hore in insha Allah ta'ala markay qaybtan imtixaanka gasho kadib qoraalkii iyo tasjiilkii la sii wadi doono insha Allah ta'ala maan cid kastoo ka faa'iideysan karta haday tahay ardayda ka imanaysa waxa weeye gobolada kale ee aan gobolkan Togdheer ahayn haday tahay ardayda ka imanaysa tuulooyinka ku xeeran gobolkan Togdheer iyo qof kastoo ka faa'iideysan karaba insha Allah ta'ala tasjiilku ونو سي سocon doona hadii alla ka dhigo imtixaanka qaybta labaadna waxay noqon doontaa 18 ayay noqon doontaa insha Allah ta'ala marka laga faa'iideysto barakallahu fiikum wa jasaakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.